kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobadan ku keenan waxaa ka mid noqon doona kulan degdeg ah oo ka dhacay magaalada Ankara ee wadankaasi Turkiga wuxuu u dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ganacsiga lagu magacaabay Axmed Taajir waxyaabaha ugu muhiimsan ay xilligan ay ka wada hadleen ganacsadaasi sida weyn loo aaminsan inuu ka mid yahay ganacsada ugu waaweyn ee dalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya kulanka abaabulin ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Allah halkaas ka wadaan ay daawo doontaan waxaa kaloo daawo doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka shiray qabanqaabada diyaargarowga ku aadan xidda markaas lagu bedel lahaa Cali Yare Cali oo maanta ka soo muuqday kulan wasaaraha ku tagay xarunta dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir waxaa kaloo idin soo gudbana madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaban waxa uu soo gaaray magaalada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas uu gulufkii ugu dambeeyay dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka bilaaban doonaan ay ka wadaan meelaha afgaal qofkaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale macaalimka diblomaasiyadda oo qaybka Ruushka oo magaalooyin caasimad u ah wadanka Ukraine maanta gantaalo culus ku weeraray fadlan haddii aad nagu soo subscribe kuna soo gambarka furno shishir gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like in noor iyo aad baad umaasantiin had iyo jeer si aad nala jaan qaadaysaan aanu ku bilaawno daawadayaal wadanka Turkiga waxaa ku sugan nidaamkii hore ee Farmaajo uu hogaaminayay oo markaas tiimkii nabad inoo ahaa waxaana siyaasiyiintooda inta ugu badan ay halkaas joogaan ay kulamo ay la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulamadaas waxay la qaateen qaarkood siyaasiyiin iyo ganacsato qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa maanta baraha bulshada lagu soo bandhigay sawirada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka muuqato xaalado markaas aad u duruufeysan qaarkoodna lagu tilmaamay ahayn sawirada baraha bulshada lagu baahiyay ayaa ka muuqanayay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka muuqatay xaalad duruufeed kadib markii xilka uu ka maqnaa muddo 4 bilood oo kaliya ama ku dhawaad 5 bilood oo xukunka imika joogo madaxweynaha hadda xilka ay Xasan Sheekh Maxamuud kulmada uu la qaatay Axmed Taajir ganacsadaha Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiinta nabad inuu wadanka Turkiga ayaa markaas xogaha ugu midsanayay waxay sheegayaan in ugu yaraan dhinacyadu ay isku qancin doonaan si dib ugu soo kaban karaan hanaanka doorashada 2000 markaasi 24 iyo wixii ka dambeeya markaasi 2025 oo doorashada wadanka Soomaaliya markaasi inay dib u dhacdo la filayo inkastoo tiimka Damudjid la filayo inay sameeyaan muddo kororsi kii ay sameeyeen Farmaajo tiimkoodii hore ayay taasi dadka shacabka Soomaaliyeed ayaa dhamaantood ka wada baraarugsanaa dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibada wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka shiraya wararka ku saabsan isbedelka dhanka maamulka gobolka Banaadir xilli maanta wasaaraha uu soo booqday xarunta dowladda hoose ee Xamara waxaana wararka ugu waaweyn ay sheegayaan inay tahay in wasaaraha uu ku qanciyay duqa Muqdisho shakhsiga lagu bedelayo inkastoo baasha habargidina kursigaas ay ku heshiisay wasaaraha ayaa la sheegayaa in ay qayb uu ka yahay hanaanka loo diyaarinayo xilwareejinta maadaama maanta Cali Yare qayb ka ahaa duqa Muqdisho Yuusuf Madaali iyo wasaaraha wadanka Xamse Cabdi Barre iyo soo kanate Cali Yare Cali tiimkii hore nabad inoo ayuu ka harsan yahay asay maanta nuuci gridi ayaa markaas baraha bulshada lagu malaysan jiray ayuu kaga soo dhex muuqday waana siyaasi mucaarada oo dowladda mucaarada markii loo eegana waa shakhsi markaas hadalhayn badan dhaliya asoo maanta la arkayay sabrada iyo markaasi muuqaalada uu ka soo dhex muuqday ee gudoomiyaha gobolka Banaadir wasaare Xamse Cabdi Barre maadaama aysan ahayn tiim isku siyaasadda oo la ogyahay Cali Yare Cali nidaamkiisii inay kala dhaween ay qaarkood ku sugeen wadanka Turkiga halka ugu qaalan ay ku sugeen sida milkiilaha dowladda milkiilihii dowladdii hore Faad Yaasin Xaaji Daahir aka Abu Musan al-Quransani ikiisa waa Camaara Faad Yaasin Xaaji Daahir ayaa markaas ninkiisa dalka qada ku suganaa dhinacyada waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha ay ka hadlayaan sidii markaasi shaqada gobolka loo xoojin lahaa wasaaraha isagoo markaas uu guurayay u kulkulay shaqooyinka loo hayo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa kulan ay wada qaateen hoggaanka maamulka gobolka Banaadir waxa ay kula dardaarmay in la dardargeliyo shaqooyinka loo hayo bulshada caasimadda ee Muqdisho marmarkana aan aadno gobolka Shabeellaha Dhexe wararka qaybihiisa dhaxan waan isoo gaana daawayaal haddii aad nagu soo subscribe kuna soo oo gambarka furo nusii share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like aan inoo reebaya aad baad u mahadsantahay hadii jeer sida aad noo dhiirigelinaysaan iyo sida aad nala socotaan wararkeena halkan aan ku soo baahino madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaban Xuseen wuxuu hogaaminayay maanta gaariga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhaqdhaqaaqa ugu dambeeyay kulan meesha Abgaal Cusmaan madaxweynaha yufdigiisa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay degmada xeebeedka ee Cadale xildhibaan maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cali Guudlaaban madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in socdaalkan uu ku yimid degmada Cadale uu ku duwan yahay socdaaladiisii hore isagoo sheegay in safarkiisa uu ku qoto markaasi dardargelinta howlgallada lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha Cali Guudlaaban ayaa saraakiisha iyo bulshada degmooyinka gobolka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan howlgallada lagu ceyrtay al-shabaab ee uu waatanba
ay u taagan xasuuqa shacabka Soomaaliyeed buu yiri tegitaanka madaxweynaha Hirshabelle Cabdalle ayaa ku soo beegmaysa saacado kadib markii xalay ay gaareen ciidamo badan oo ka tagay magaalada Muqdisho u badan beesha Abgaal Cusmaan halkaas oo gulufkii ugu dambeeyay ay ka wadaan wararka gobolka ayaan aadinahay markaan waan u soo laabanaa wararka arrimaha Soomaaliya warar ku saabsan magaalada Muqdisho bakaaraha nin hubeysan oo dad shacab markaasi weeray ayaa goor ma qodobtaan si ay arrimaha gobolka hadii aan eegno ciidamada Ruushka ayaa fuliyay weeraro mar qura lagu qaaday magaalooyinka dalka Ukraine oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi Kiev wararka ayaa sheegay in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada caasimadda Kiev iyo dhammaan magaalooyinka dalkaasi Ukraine iyadoo weli ay socdaan gantaalaha ku hoobanaya magaalooyinkaas oo lagu qiyaasay ilaa imika in ku dhow 50 gantaala wararka Ruushka ayaa argos yimid kadib markii la qarxiyay buundada caalamiga ah ee isku xirta Ruushka iyo gobolka Crimea oo lagu eedeeyay inay fuliyeen sirdoonka dalkaasi Ukraine magaalada Kiev waxaa ku dhintay qof iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa 24 kale sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdega ee Ukraine madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa goortii horeysay sheegay in duqeyn culus lagu soo qaaday dalkiisa Ruushkana ay doonayeen in dalkiisa ay baabiyaan shalay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku eedeeyay inuu sirdoonka Ukraine ay sameeyaan waxa uu ku tilmaamay fal argagax isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan kana jawaabi doonaan weerarka waxaa qayb ka diyaaradaha iswada ee daroonka oo iyagu markaasi miinaysan laga hagayo inay markaasi fuliyaan weeraro qaraxyo ilaa iyo 8 kamid ah diyaaradahaas ay Ruushka ay u adeegsadeen weerarka ka socda wadanka Ukraine markaan hadaan eegno aan ku soo laabano wararka Soomaaliya suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo kamid ah suuqyada ugu waaweyn ee dalka ayaa nin hubeysan waxa uu markaasi weeray dadweyne halka ku ganacsanaya asaashee ka raacdo waa la yaabay in basood hubeysan ayaa lagu qabtay suuqa weyn ee bakaaraha caasimadda Muqdisho kadib markii uu qalqal geliyay ganacsada suuqaasi ninka ayaa la sheegay inuu weeray bakaaro ku yaala suuqa bakaaraha isla markaana uu rasaas ku riday goobaha ganacsiga waxaana markaas kadib ka hortagay dadweyne cariisan iyadoo markii dambena ay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga wararka intaas ku daraya in ninka hubeysan uu ka tirsanaa ururka Daesh ee Soomaaliya ujeedkiisuna ahaa inuu xabsi geliyo ganacsada si ay u bixiyaan lacago baada ciidamada musuqada ayaa lagu wareegay ninkan waxaana saraakiisha booliiska saldhigga Howlwadaag ay sheegay inuu baaritaan ku socdo lana ogaaday inuu ka tirsan yahay ururweynaha Daesh ee Al-Qaacida hoostaga gudaha wararkii waaweynaa Soomaaliya caalamka kala socoteen channelkeena daawadayaal waa aniginta hadii aad ku soo subscribe kuna soo kambalka nafro una sii sharaxay saxbiin meelkasta jooga idinku commentiga like noo rabiyo kuma tidin la socoshada iyo warar kale halkaan ku soo gudbino dhiirigeliya daawadayaal oo nagu dhiirigeliya subscribe like share garay aad baad u baahantiin